madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay kulan dadweyne oo xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay ku soo bandhigtay waxqabadka dawladda ee 6 bilood ee la soo dhaafay. Bandhigga waxqabadka xukuumadda dan qaran ee caawa waxa uu si faahfaahsan u dul istaagay 7 jiho oo laga xaqiijiyay guulo wax ku ool ah kuwaasi oo kala ah xoreynta iyo xasilinta deegaano iyo degmooyin badan oo dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateyn jireen kooxaha qawaarijta ah. gurmadka abaaraha oo ka jawaabay xaalad nololeed oo adag oo soo food saartay in ka badan 7 milyan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah. xasilinta siyaasadda oo sahashay in hay'adaha heer federaal iyo heer dawlad goboleed ay yeeshaan wada shaqayn toos ah, taasi oo horseeday in isfaham buuxa laga gaaro ajandayaal muhiim u ah dhismaha dawlad Soomaaliyeed oo dhameystiran iyo horumarinta dalka, kobcinta dhaqaalaha iyo dardargelinta barnaamijka deyn cafinta oo maraya heerarkii ugu dambeeyay. Soomaali heshiis la ah dunida iyo sameynta 16 sharci oo dhaxalgal ah kuwaasi oo 11 kamid uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda. ujeedada koobaad waxaan rumaysanahay haddaan nahay xukuumadda dan qaran in aan accountable u nahay oo ay tahay inay nala xisaabtamaan annaguna aan ogolnahay dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda, labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed, dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intaba caawa waxay xaq u leeyihiin in aad u leedihiin inaad ogaataan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan xukuumaddii loo igmaday in ay wax ka qabato xaaladaha adag ee aan hore ku soo xusay ee dalka ka taagnaa. maxaa u qabsoomay muddadii ay jirtay ee 6 bilood ee la soo dhaafay? qodobka labaad, waxaa naga go'an in aan la noolaano bulshadeenna, ka jawaabno su'aalahooda, sidoo kale aan dhagaysanno taladooda iyo tusaalahooda iyo toosintooda intaba. madasha waxaa bandhigyo ku saabsan waxqabadka hay'adaha ay maamulaan ku soo bandhigay 7 wasiir oo kamid ah wasaaradaha xukuumadda. sidoo kale waxaa fursad la siiyay dadweynaha ka qayb galay oo su'aalo furan weydiiyay mas'uuliyiinta dawladda ee kulankan ka qayb galay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulanka khudbad dheer jeediyay ayaa ka hadlay dagaalka dalka looga ciribtirayo qawaarijta, qorshaha dawladda ee barnaamijka deyn cafinta iyo sidoo kale hiigsiga dawladda ee horumarinta dalka. dadka Soomaaliyeed marka saddexdaas waxyaabood ha u diyaar garoobaan. shabaab kadib waxaan sameynay deyn cafinta kadib waxaan sameynay deeqda bini'aadanimo ee gacantu ay noo hoorsan tahay sidaad uga guuri lahayn oo aan uga guuri lahayn walaxan annaga tacbannay oo annaga leenahay, beerteenna ka soo baxay, xoolaheenna ka yimiday, maxaan ku dhahaa baddeenna ka yimiday, dhulkeenna hoostiisa ka yimiday. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ummadda Soomaaliyeed ka dalbaday inay u diyaar garoobaan jaangoynta mustaqbalka dalka kadib dhamaadka al-shabaab iyo cafinta deymaha culeysiyay tunka dhaqaale ee dalkeenna. waxaa noo bilowday qaabayntii biri aan qaabayn lahayn oo inay biri fiican tahayna aan qaabayn lahayn kuna qanci lahayn inay biri fiican tahay. waa inaan birideenna qaabaynaa. birideenna si aan u qaabaynahay waa in biri xuduud leh, la garanayo, waqti leh. mustaqbalkaasaan yeelayna mustaqbal qurxoon kaliya naguma filla. waxay ahayd madashii ugu horreeyay ee nuuceeda oo kale ah oo ay qabato xukuumadda Soomaaliya tan iyo dhismaheedii. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ballan qaaday in dawladdu ay sii wadi doonto barnaamijka daahfurnaanta iyo sidoo kale in dadweynuhu ay su'aalo hor dhigaan mas'uuliyiinta dawladda si ay u ogaadaan waxqabadka loo hayo ummadda. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka.